daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saaro kumbeelka furada wararka ugu dambeeyay mahadsanid adeegsiga ciidamada Ethiopia ee madaxweyne Farmaajo oo laga hor yimid isla markaana loo aqoonsaday madaxweyne Farmaajo inuusan wadani ahayn oo yahay dabadhilifka ciidamada Ethiopia ama dawladda Ethiopia hase yeeshee madaxweyne Farmaajo tan iyo xilka intuu hayay ayaa waxaa soo baxayay ciidamada Ethiopia inuu dalka u adeegsaday isla markaasina gabi ahaanba hadaladiisii hore oo ahaa inuu Ethiopia nacab yahay ayaa iminka waxaa la leeyahay madaxweyne Farmaajo waa dabadhilifka Ethiopia isla markaasina la leeyahay ciidamada maanta uu soo geliyay dhuusamareeb aan marnaba naga aqbali doonin hase yeeshee waxaa la leeyahay wuxuu la kulmayaa cadaadis xooggan isla markaasina mucaaradkii oo meel kasta ku soo faahfaahinaya in madaxweyne Farmaajo ciidamada Ethiopia dalka ku burburinaya isla markaasina aan la aqbali doonin hase yeeshee xildhibaan caan ah oo maanta bartiisa Facebook qoraal dheer ku soo sheegay isla markaasina faahfaahiyay xildhibaan Axmed Macalin Faqi oo kamid ah madasha xisbiyada qaran oo garab la ah madaxweynayaashii hore ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh ayaa aad u dhaliilay adeegsiga madaxweyne Farmaajo ciidamada Ethiopia kadib markii maanta ay ciidamada Ethiopia ay gaareen magaalada dhuusamareeb ee xarunta dalkaasi Galmudug isla markaasina aad loola yaabay ciidamada iminka ku soo qulqulaya halkaasi xildhibaan Faqi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Facebook ku yiri madaxweyne Farmaajo ciidanka Ethiopia ayuu jecel yahay adeegsiga dal loo safrana Ethiopia ayuu u jecel yahay sanadka kaliya sanadka 2019 in ka badan 5 jeer ayuu isaga daba noqday gobolada dalka uu madaxda ka yahay goor ugu dambeysay booqashadiisa lama garanayo marka laga reebo beledweyne oo uu ku sugnaa 2 saacadood oo kaliya oo isla markaasina lugaha biyaha la galay fatahaada uu soo geliyay isla markaasina isku soo sawiray xildhibaan Macalin Faqi oo aad mucaarad ugu ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada Ethiopiaanka ay dhuusamareeb la geeyay ay daliil cad u tahay sidii uu Farmaajo dalkiisa iyo dadkiisa ugu loogayo ciidamada dal kale ogolaanshihiisa in ay ku qabsadaan magaalooyinka Soomaaliya qaar kamid ah hase yeeshee qof walba oo Soomaaliya ha ogaado in madaxweyne Farmaajo uu dalka Ethiopia u gacan gelinayo madaxweyne Farmaajo ayaa horay ciidamada Ethiopia ugu adeegsaday doorashadii koonfur galbeed ee Baydhabo wuxuu sidoo kale isku dayay inuu adeegsado Jubbaland balse waxa ka hor yimid Axmed Madoobe ayuu xildhibaan Faqi yiri xildhibaan Faqi ayaa sheegay inaysan jirin baahi loo qabo in ciidamada Ethiopia la geeyo dhuusamareeb isla markaasina ay caqaladayaan doorashada halkaasi ka dhacayso oo ummadda Soomaaliyeed ee wada dhaxayso Farmaajo cidna lagama aqbali doono dalka inuu ciidan iyo lacag shisheeye si jajuub ah ugu qabso ama ugu qaso ayuu yiri hadalkiisa isagoo ay cad tahay in wadaniyadii halkii uu dhigayay ahayd in ay kashiftay maadaama hore dhowr mar uu sheegay inuu wadani yahay cid kasta oo wadaniyad iyo erayo wanaagsan ku taageersan tahay Farmaajo ay arkaan maanta in madaxweyne Farmaajo la soo baxay dhaqankii qabqablayaashii dagaalka oo kale oo mar walba dalka u soo horkici jiray ciidamada Ethiopian ayaa la yiri asigoo tusaale ugu soo qaatay qabqablayaashii hore xilligii ay jireen qabqabla kasta Ethiopia ayuu tagi jiray isla markaasina ciidamo ayuu ku soo adeegsan jiray dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iminka tala sidii ayuu yahay ka hor inta aanan bisha Febraayo ee sanadii 2017 loo dooran madaxweyne Farmaajo waxa uu ahaa siyaasi Soomaalida ka galay inuu nacab yahay shisheeyaha gaar ahaan ciidamada Ethiopia hase yeeshee ninkii shalay nacab Ethiopia maanta waa kana u safray isla markaasina magaalo kasta ciidamada Ethiopia soo gelinayo waxa uu marar badan waraysi bixiyay oo ku sheegay in Ethiopia ay tahay cadowga koowaad ee Soomaaliya isla markaana aysan ahayn in mar ciidankooda ay joogaan Soomaaliya hase yeeshee iminka asigii ayaa ku soo qulqulinaya si kastaba markii uu xukunka qabtay kadib dhammaan mowqifyadiisii hore waxa ay iska bedeleen waxa uu dawladda Ethiopia ugu gacan geliyay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa halgamaa Soomaaliyeed waxa uu aqbalay joogitaanka ciidamada Ethiopia oo uu bilaabay inuu dana siyaasadeed u adeegsado waxaana kadib uu Ethiopia oo ka dhigtay isbahaysi dhow isla markaasina uu ka dhigtay saaxiib dhow Abiy Ahmed oo ah ra'iisul wasaare Ethiopia isku soo wada duubay xildhibaan Faqi oo iminka ku sheegaya in madaxweyne Farmaajo aan marnaba laga aqbali doonin inuu ciidamo Ethiopian uu keeno magaalada dhuusamareeb isla markaasina halkaasi ay kharibaan sayashe lama ongolaan doono ayuu yiri waxa soo tarayo mucaaradka lagu yahay madaxweyne Farmaajo ciidamada Ethiopia gedo ku qabsaday isla markaasina ninka la doonayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe halkaasi lagu tuuro iminka dhuusamareeb ayay soo galeen bal aanu aragno waxa xigi doono sayashe qodobada dambe ayaa ku daawo doontaan dhinaca kale ururka IGAD oo dooratay hoggaan cusub isla markaasina Soomaaliya Kenya iyo dalka Djibouti laga dhex bixiyay maadaama khilaaf xooggan oo sheegay sidaan hore u sheegnaba shalay
waxa aan hore u sheegnay wararkayna inuu ahaa dowladda Kenya oo garab ah iyo Ethiopia garab ah Soomaaliya garab ah oo iyo Djibouti oo isku garab ah isla markaasina dagaal xoogan iyo lolan oo ka jiro haddaba dalka Suudaan ayaa ka soo dhaxbaxay urur goboleedka IGAD ee ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Suudaan Abdallah Hamdok oo u doortay inuu noqdo gudoomiyaha cusub ee urur goboleedka IGAD hase yeeshee halkaasi Uhuru Kenyatta oo u carafsanayay in halkaasi laga dulqaaday go'aanka lagu doortay ra'iisul wasaaraha cusub ee Suudaan oo ku dhisnaa heshiis ay gaareen dhinacyada ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa oo madaxda urur goboleedka ay ku shiran yihiin maanta waxaana loo arkaa mid xal ah xilligani looga dhex bixiyay dalalka Kenya Djibouti iyo Soomaaliya aad isugu haystay isla markaasina Djibouti iyo Soomaaliya garab ahaa u diidanaa dalka Kenya inay gacanta ku dhigto warbaahinta ayaa shalay qortay khilaaf u dhaxeeya ama aan qorna anagaba Djibouti iyo Kenya ay hogaamin karto in labadooda ay Soomaaliya ay ka waayaan in madaxdooda ay bedelaan gudoomiyaha xilka ee ka degay ee Abiy Ahmed Soomaaliya iyo Djibouti oo aad uga soo horjeeday in hogaanka ururka ay qabato dalka Kenya ayaa diiday in ay mowqifkoodii bedelaan hase yeeshee maanta doorasho halkaasi lagu galay oo ka soo muuqday ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Suudaan Hamdok ayaa hogaanka ururka kala wareegay Ethiopia oo haysata tan iyo sanadii 2010 dalka Suudaan ayaa xilligan ahayn doonta muddo sanad ah taasi oo ra'iisul wasaaraha Hamdok siin doonta saameyn cusub oo bilo kadib markii uu noqday madaxda dowladda ku meel gaarka ah ee Suudaan kadib xilka dooristii lagu sameeyay madaxweynihii hore ee Suudaan Umar Hassan al-Bashir ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa kursiga ku fadhiyay tan iyo markii uu dowladda kala wareegay bishii ama la wareegay bishii Abriil ee sanadii 2018 Ethiopia ayaa waxaa xilka hogaanka IGAD tan iyo 2010 uu hayay ra'iisul wasaarayaashii hore ee ka horeeyay Abiy Ahmed sida Haile Mariam ninka lagu magacaabo iyo Mala Sanawi IGAD ayaa ka cabsi qabta in haddii kursiga la siiyo Kenya ayada oo ay diidan yihiin Soomaaliya iyo Djibouti ay xiisad hor leh kasii dhex abuuri lahayd ururka waxaana taas sababtay Kenya in la siiyo intii Kenyatta la siin lahay la siiyo dalka Suudaan yeeshee dalka Soomaaliya iyo Djibouti aad ugu farxay isla markaasina soo dhaweeyay maadaama dalka Kenya aan loo gacan gelin Suudaan oo si fudud halkaasi kaga dhex bixisay ayaa iminka waxaa la leeyahay waa ra'iisul wasaare guulka gaaray halkaan naga daawanaysaan waa Calansida Media fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo nala joog oo ka mid noqo Calansida member haddii aan eegno qodobka xiga oo aan sii gudagalno wararkii ugu dambeeyay weerar xiriir ah ama argagaxiso lagu sheegay ayaa ka dhacay magaalada London isla markaasina Torrey ayuu nin la dhex qaaday dad shacab halkaasi marayay weerar midiyeysan ayaa booliska ay sheegeen inuu ahaa weerar argagaxiso xiriir la leh ayaa maanta ka dhacay boondada magaalada London oo aad u mashquul badan isla markaasina nin Torrey ku hubeysan ayaa booliska sida ay sheegeen soo dhaxgalay isla markaasina dad shacab halkaas ku toorreeyay booliska ayaa sheegay in loogu yeeray weerarkani abaara labadii duhurnimo isla markaasina marka uu falka dhacayay telefoonka u soo dhacay sida daraateedna ay u gurmadeen dadkii halkaasi weerarka loogu geystay dhowr qof ayaa la toorreeyay waxaana muuqaalo la soo duubay ay muujinayaan dhowr qof oo weerarkani ninka la rumaysan yahay inuu yahay kan weerarka midiyeysan uu ku qaaday dadka shacabka ayaa baraha bulshada la soo dhigay booliska oo kadib goobta soo gaaray ayaa toogtay ninkii weerarka soo qaaday ee hubeysnaa ama midiyaha ku hubeysnaay ayaa waxaa la leeyahay si toos ah ay u khaarijiyeen 5 qof oo ka mid ahaa dadka la tooreeyay ayaa sidoo kale la sheegay inay dhaawac yihiin isla markaasina isbitaalada lagu dabiibayo imanka ka hor inta aanan la toogan ninkan weerarka soo qaaday ayaa qof ka mid ah dadkii isku dayay inay ka hortagaan waxa uu ka qaaday mindidii isla markaasina uu lagday oo dhulka xabadka u dhigay kadibna ciidamadii ay yimaadeen ra'iisul wasaaraha dalka Boris Johnson ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay dhacdadaani waxaana uu joojiyay olole doorasho uu ka waday deegaan doorashadiisa oo ah meesha lagu magacaabo Uxbridge isaga oo dib ugu soo laabtay Westminster isla markaasina sheegay arrintan inay tahay mid aad looga naxo weerarkan ayaa yimid toddobaadyo kadib markii hoos loo dhigay xeerka helista argagixisada ee dalka UK isla markaasina hoos loo dhigay waxa uu sidoo kale weerarkani imaanaya 2 sano kadib markii weerar argagixiso ay ka dhacday boondada London halkaasi oo 3 nin ay ku dileen 8 qof isla markaana ay ku dhaawaceen 48 qofood taasi oo la sheegay waa midii ugu dhimashaha badneed ee ka dhacday boondadaasi hase yeeshee weerarkaasi waa ilaa iminka ninka meesha uu ka soo jeedo iyo magaciisa saxda lama soo gudbin hase yeeshee qodobadeena xiga ayaad ku daawan doontaan